dadka qaar si kala laga inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaala waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way sal isu waafajin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad ibn jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabkii laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo igmanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad ibn jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si una isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa lawhul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa lawhul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhigo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xunana kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkiina wax ka soo sheega ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka cook ma sheegaysa magaci ninka ingiriisiga oo meesha ka soo saaray watarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yaani إن الفاميليا ما فرنا في الكتاب شيء وحلو جدا والله المحفوظ كواحد كسو شيء لكن كتاب كان القرآن فإن لم تجد أياك جرت تاسوا مدة لو حيت هاي كتاب هذا إنه قرآن الفقه جاء سفينة كسب بلو شيخ أيا قري فصل هذا كم فصل واي وإنه قري نواقض الوضوء فرائض الوضوء مبطلات الصلاة وهو قري منهاجك شيخا قري وو شرحي وواخ لا قري اوغادا لكن waxa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyay kitaabkii wuxuu inoo ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaraan ahayn wada midalan khamradu waa xaraan ribadu waa xaraan zinadu waa xaraan hadii dastuur la sameeyay inta la dhahoyado adduunka maanta gaalaha haysatay bangiyada rabay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahna dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaal ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way banaantahay haday qaar dhahan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iskale wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib laakiin ka waram hadaan dejisano qaanuunka la yiraahdo qaanuun tawdiif al-amal shaqada dadka sida loo siiyo حيالي مثلا وزارة ماشي أنا يتعلق شقالين يقالتين ربطها هدي أن قانون لو سميني شقالها لغو قاطو وحا إيمان إيسا قفكي معمولة لو قد ديقو وزارة داس انت المعذير كأيهين لأنه كقرو شقالات هاي أدنا شقالات هاي أدنا شقال كل وذا شقالة كديقو ورسلان محاي تهاي محاي أهان الله يده وزير كمحا 4.5 سوى لغو قيبسان وزارة أنك عسكالي ورسلان اسمعها وزارة ومدى يكد حيسا عن صور دادك لغا قاضي ayay wasaaraddu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaynaa
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسيل لو مرا هذا مثلا جيت كان هورتين مرا افغوي هذا بابورتو marka ay marayaan laba dhinac ay kala maraan kii afgooy u socda dhanka midigtu maraa ka afgooy ka imaadayna dhanka bidixdu maraa way isgarab socdaan marka hadii مثلا ku afgooy u socda intuu ka baxo dhinaca midigta ah oo dhinaca kale uu maro dadkoo dhan maxay dhahayaan hadan waa iskala qabsanay waa iska maraa ma ogiye laakiin maxaa leeyahay baabuurkaas sharci darro ayuu wadada ku maraaya oo seedkiisii ama dhinaciisii ma ah haddii taraafikadu ay qabato maxay dhahayaan mukhaalafuu ku jiraa wuxuu khilaafay qaanuunkii oo wadada lagu mari lahaa ganaaxa laga qaadaya haddaad tiraahdo qofkan 100,000 oo shilin Soomaaliya laga qaaday maxaa looga qaaday aayadee looga qaaday haddaad tiraahdo aayad ganaax sheegaysa oo ku dhahaysa 100,000 laga qaado qofkii jidka afgooy asagoo dhinacii kale ka maraaya dhahaya ma helaysid xadiidna ma helaysid laakiin haddaan saa loo nidaaminin shilalka baabuurta iyo isku dhacayaa badanaya saas daraadeed wixii macnaha dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan nabigu wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri dunyaakum adduunyada saa u dhaqanaysan idinka taqaanaan laakiin waxaan la ogolayn wax shariicada khilaafsan hadda inaga Soomaali hadaan nahay burburkii kadib wax un dawlad la isku soo yara aadiyo waxa laga soo bilaabaa 2000 shirkii carta waxa qaban qaabi oo ogtiin Soomaalida ayaama taariikhda maxay ku fiicneen ma ogi waxa qaban qaabi dad bulsho rayid ah oo culimo ay hogaaminayaan oo hogaami kooxeedyadii xilligaas jiray qayb kama ayna ahayn waxa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii culimadii waa shirki carta waa ogtiin soo ku dhacay markii la qoraayay dastuurka waxa lagu qoray oo ilaa hadaba ku taala ay qaanuun yukhalifu shariica al-islaamiyya yu'tabaru baatilan qodob kasta oo shariicada islaamka ka hor imaanaya waa wax kama jiraan yaa marka Soomaali shariicadu waxaan yaa ku xukumi kara ka ugu faasiqsan hadii la keeno bulshada ayuu og yahay inay shariicada ogoshahay hadii su'aal la weydiiyo leedahay wadanka maxaad ku xukumaysaa hadda waa faasiq hadda la og yahay oo Moryana muxuu dhahayaa shariicada wala ma taabtaan shariicada lagu xukumayaa meeshaas fiir waa la soo gaarsiiyay waa mas'uul soo gaarsiiyay in la fuliyo la dhiman ee dadka fikir ahaan dadkoo dhan waxa laga dhaadhiciyay shariicada islaamka muslimaan nahay wax kale oo anfacaya ma jiro ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wuxuu ilaahay soo dejiyay raaca wuxuu ilaahay soo dejiyay wixii sidaas loo sheegay oo xalaal iyo xaaraan iyo ku saabsan waa sidaas wixii nidaamin iyo ku saabsan xagee la maraa iyo beeraha see loo qotaa iyo jawiga see diyaaradaha loo kala hagaayo baabuurtu say ku kala socdaan iyo see shaqada markii dadka la siinayo loo kala nidaamiyaa iyo intaas waa la inoo ogol yahay intaas markaan ka soo gudubno oo dastuurnimada mushkil ma leeyahay waxa lagu qoray in baa la fiirinayaa ay noqoto hal arrin oo waxa inoo soo hartay hal mas'ala oo lagu baabacay oo meesha Soomaaliya ay dhahdaan faraha looga gubtay ayaa ayadana jirta arrintaasi culays weyn ee dadka ku haysa oo ah يعني دولة نمتك Soomaaliya hadaan nahay dawlad nimadkeenu way cusub tahay oo madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen aadan cad Allahu naxariistay mar dhaw ayuu dhintay waa madaxweynihii ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalkii inta laga soo imaaday iyo waqti dheer ma in badanna fawda ayaan ku jirnay waxa mushkil inagu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wuxuu ahaa shariicada aan ku toosnayn maxaa yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ayna ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaar ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshun baa laga sii waday markii la soo qaado yani shariicadiiba ayadoo hirgashay oo lagu dhaqmay ma aynan arag waa uu la isiryanay waa uu la isbuursanay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillah dadku ma ayna arag waxay soo arki jireen bay ahayd waxa la arkaa marka caalamka kale markaad fiirisid iyo inaga markaad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqantaa su'aal la isweydiina haye maxay xukuntaa markaas waxa la midaan mashruuca xukuntaa mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aal meesha aan baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadka waxa u sahlan marka oo fudud aayadaha hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan xoga kor istaagayna aayada koobaad wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul kaafiruun yani qofkii xukumi waa wuxuu ilaahay soo dajiyay fa ulaa'ika humul kaafiruun waa gaalo aayada kale maxay leedahay fa ulaa'ika humul zaalimuun fa ulaa'ika humul faasiquun saddex aayado isdaba yaala Soomaa
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kuma ayna dhamaanin midna waxay ku dhamaatay kaafiruun mid waxay ku dhamaatay zaalimuun midna waxay ku dhamaatay faasiquun